بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Soomaalida daafaha dunida meel kastood kaga sugan tihiin sadar muuqda su'aal ma baahna waxay noogsoonay dalkii Ruushku inuu weeraray dalkii Ukraine ee awalba isaga ka tirsanaan jiray ka go'ay hasan noqotay inuu weeraro maxaa keenay wuxuu ku yiri Ukraine ay dariskayga ahaw dhaxdhaxaad ahaw shisheeyayaanu ii ka soo marin gaashaan buurtay NATO iyo Mareykan iyo xulufadiisa ay soo dhaweyn waa laga dhagaysan waayay Mareykan iyo xulufadiisu uu tagay wuxuu ku yiri warnimay oo halka badda madow ay soo dagina anigu waan isfahmaynaay waa laga dhagaysan waayay waxa la yaab leh oo meelaha sirta militariga ee afafka kala ku qoran marka akhrido dunidii ka yaabantay sidoo Ruushku ugu diyaar garoobay dagaalkan isaga oo iska dhigaya nin nabadeed wuxuu sameeyay ugu yaraan wuxuu haystaa 7500 oo madaxa hubka wax baabiya qayb wuxuu dajiyay Venezuela oo Latin America ku taala si Mareykanka halista kaga imanaysa barta loogu aamusiyo qaybna wuxuu dajiyay Belarusia si uu maxaan ku raahdaayay halista Yurub kaga imanaysa halka ugu aamusiyo wixii teknika iyo hubu haystayna wuxuu soo taaday xuduudka labada dal bil buu soo guray waxa la yiri maxagaad ku wada wuxuu yiri annaga iyo Belarusia ayaa sameeynayna maxaan ku raahdaayay waxyeelo dagaal waxaanu sameeynaynaa buu yiri dabaaldeg okay ama damrid baanu sameeynaynaa inuu soo ku dhaqaaqayo warku waa iska cadda aniga soo waxa ila yaabo madaxaygan ka weynaatay Mareykankii aynu beerka dhulka ku wada haynay markuu isagu dunidan in leeyahay macallin baan ka ahay ee waxaan ku dawladda intuu weeraray burburiyay ee maalinta Ciraaq weeraray bil bay ku qaadato wuxuu ka soo galay dalka Kuwait Soomaad garanay ee maalinta Ciraaq qabsadayna yiri bil shaasa dagaalkii ku dhamaaday sanada idil ilaa Syria ilaa Afghanistan meel walba dagaalkii gaaray ee burburiyay ee madaxweynihii baanama intuu saqdhaxa soo qaatay dalkiisa jeel intuu ku dhaxidhay uu ku dhintay anagu booliskii baan ku ogaan dunida ilaalinaya Mareykanku xagu ilaalinaya intuu Ruushku sidan u diyaar garoobay mid kale waxa la yaaba maanta badii madoobay ninka kaliya ee Ruushka ka celin laa wuxuu ahaa maxaan ku raadayay Turkigana waxay noogsanay Erdogan in reer galbeedku Afgambi u diyaariyeen iyagoo markaa Ruushka iyo culeysiyo Turki isagoo hudheel ku jira Afgambigi waxa ka badbaadiyay Ruushka iyo hudheelkii degdeg uga baxay waa kii ka baxay Erdogan sidii ku badbaaday maanta ninkii badda madow ka celin lahaa Ruush waa kii gantaalihii la oran jiray S400 Ruushka ka iibsaday halkaas uu ku rakibtay intaas oo shiidaalana uu ka qotay ninkii Ruushna wuxuu leeyahay hore u soco dhinacna reer galbeedkii wuxuu ka yartusaya waxaan ku dhahdayay waa in wax laga qabto laakiin waxaad ogsoonaatay yaanu dagaalkan horta uu fariin yahay China fariin yahay Ukraine bacdama uu maanta ku dhex galgalanayo ninkii la oran jiray Ruush uu wadooyinkii caasimadda lagu dagaalamayo madaxweynihiina la isdhex marinayo waanu baxsaday ama uu joogaa saddex gobol imika waxa jiray China doonayay in ka go'aan marka laga tago Taiwan hore uga degooni isaga taagtay waa gobolka Tibet oo dalalaama hogaamiyo waa gobolka Xinjiang oo muslimiinta Uyghurs ku degaan iyo meesha la yiraahdo Hong Kong saddexdaas way baaqanayaan waxana iska cad China maalinta ay gaadho inuu ku talaabsan doono Taiwan gacantana uu ku dhigi doono halka Soomaalidu haday damiir leeyihiin fikir bay kala bixi karaan waliba dalkayga Soomaaliland Soomaalidan garanin hadaba waxa la yaab leh dagaalku waa dagaal oo dunidu way iskaga hortimaada laakiin inuu ciyaaraha saameeyo anigu maan moodayna in la kala ilaaliyo baan moodayay mulkiilaha kooxda Chelsea waa nin Ruushka ka soo jeeda Soomaad garan cidhiidhiga ay Ingiriiska iyo UK ku hayeen xataa wuxuu dalbaday dhalasho Israa'iila wuu waayay imikana Ingiriisku waxay doonayaan inay baarlamaanka UK horgeeyaan lagagana doodo ninkaasi Vladimir Putin ayuu saaxiib leeyahay xoolaha iyo dhaqaalaha intuu isaga ku kabi lahaa hal la qabto taa waxa ka sii daran haday riyo ku baqtida dalka Ingiriiska iyo Yurub waxa la leeyahay Ruush baa sameeyay Ruushow hadii awoodiisi ay islahaayeen midowgii Soviet marka qaybisaan maanta way kala dhantaalatay waxba kama jiraan imika dacaayad bay ku furayaan waxay leeyihiin sidii la moodayo dagaalku ma waaba laba cisha la joogay adiga bil bay kugu qaadatay Ciraaq Ruush Mareykano marka imika gantaalo fara badan iyo diyaaradahay soo dubeen Poland iyo meelaha iyo Hungary iyo wax alla waxay ka qabanayaan ma jiro mid kale halka waxa ka dilaacday hubku haduu gacanta ka baxo waad garanaysaa shacabka Ukraine oo dhan waa la hubay xuduudada Yurub oo dhan buu ka tabaya oo meel walba uu maraya mid kale Mareykan markuu ku leeyahay Ukraine yaanu weerarin muxuu u weeraray Ruushku xaalad bini'aadanimo ka dhalanay qaxoontiga Hargeysa inala joogan iyo meel walba isagu xaaladii bini'aadanimo meel walba ka dhigay marka waxa weeyaan siyaasadda caalamka dumar iyo ragow raggu waa ka update oo way la socdaan laakiin dumarkii ayaa siyaasadda caalamka eberka ah haddii ay hadli lahaayeen dumar baaban ee deekanaaxayne
waxaan odhan lahaa dhaliishuna way furan tahay mar kale waxaad ogsoontihiin badda madow inuu ruushku ay tahay marinka kaliya maanta u soo hadhay markii dalalkii midowgii Sofiyeed la isku oran jiray ay burbureen badda madow wuxuu dhigay intaas soo gantaalo hubkii wax gumaadayay ilaa iyo 2000 oo markab halka iyagu ku faanayaan 300 markab baan meelaha soo dhigdhignay marka horta in aan quwadaha waaweyn isku dhicin inaga lafteena inoo daayday la dadka inala tagay salaam